السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان مرت شرفت هالكم فريدة ينتهي لجيسين الساعة الشعب الصومالي الذي بدي يقول شوكته أنت كلا أفصوانك تقنع عدك يوم مقر إسلام مقر دونته لما أنت بوحد كبوا قادر يانا كوهم بليين إياه سيديتو كمي وأمر أنت نصون قشة حرنودا سومالي الآن مرة بعد وحن سود وينيا وفودين وكرة تبدأ لك رجال كان هاي وراها لنا هاي أو موتشنا يا درس وناقة نبضة ورالتين ماذا وحوض قبسك كم وضع ذلك شاركة أين وضعنا ولا هيجيس كأفريقيا دمانتو وحدي بعد قبس لا مقتشم ويانا ندوعين أنا ما طوّرني حضايب أو هذا اللي رجلي مايو وادعيه حنبليو وحندوري إنه حنبليينه أو أي مكاشي الله بالصعب يموزي بوتونه ترياش إذا ما قارنك ما أنت صوب مني جاي ما أنت صوب مني جاي بدونه هذا هو سوما لأننا كنا حي intii Soomaaliland jeclina ay ku faraxday ummadu waa idin mahadnaqaysa dhammaan ciidamada laga gaarsiiya idinkoo odayaashoodiya idinkana dadaalka iyo nafurida iyo maanta saa ummadiina u tusteen hawshu haysa waa idin mahadnaqaynaa aad iyo aad baa mahadsantiin waa idin ducaynaynaa aad baa mahadsantiin inta kadib hadalkii maanta aynu iyo inta nololahay gudaha waynu uga hadalay 18 May qiimaha ay noo leedahay wax yar ka taaban oo ah xagga bulshada aan ahayn xagga siyaasadda 18 May waxyaalaha ay ku tahay waxa weyn xafladii tan ka horeysay waxa laga xusay shanta qaaradood ee adduunka dalka ugu bariyeeya adduunka cad ugu soo baxay New Zealand iyo kay ugu galbeedeysay ee Canada waa laga xusay waxaa laga xusay 43 dal ayaa looga dabaaldegay 14 Afrika ahaayeen 13 Asia ahaayeen iyo North America laba iyo New Zealand iyo Australia waxa ay ku muujinaysaa kartida iyo adkaysiga dadka Somaliland iyo halka ay ka taagan tahay qarannimadii dal jacaylkooda ayay dal walba iyadoo oo aan la ictiraafsanayn iyagoo oo jaariyada oo laga yaabo inay badankoodu qaxooti yihiin iyagoo laga yaabo in dhaqaalaha badan hurin ayay waqtiga iyo dhaqaalahooda iyo fikirkooda u hureen meel walba adduunka joogaanba oo ay ku xuseen qarannimada state-ka Soomaaliland taasina waxayna tusaysaa dal jacaylkii iyo dhafuridii aabayaashoodii awooshad u soo furiyeen si qaranka loo dhiso oo noqdo mid xoro oo madax banaan oo taladiisa leh waxaan rajaynayaa maantana intii ka badan in looga dabaaldegi doono waxa taaka sii dheer maalinta ay soo dhowdahay 18 May bisha lacagta ku baxdaa waxaan isleeyahay malaayiin lacagta Mareykanka gaaraysa bal waxaad eegtaa qof walba Soomaaliland meel joogaba oo ka gaari karaayo inuu waayo mooyaane wuxuu ku dadaalayaa inuu iibsado calanka Soomaaliland oo gacantiisa ku qaado wuxuu ku dadaalayaa gurigiisa gaarigiisa iyo baacimsarkiisa inuu calanka Soomaaliland soo isagaana iibsanaya isagaana dooranaya halka waxa ka furma dhaqdhaqaaq suuq oo xoolo badan dalka dhexdiisa ay lacagtaas ku wareegto waxa intaa dheer oo aad iyo aad suuq xaamiya uga hela shirkadaha wax daabaca oo boorarka iyo stickerska iyo calaamadaha aad iyo aad u iibsada waxaad ku dartaa hodheelada inta laga kareysanayo iyo inta la isku casuubayo magaca qarannimada maalinta Soomaaliland waxaad ku dartaa gaadiidka la kareysanayo waxa naftooda u hura oo aan bishaas xariinta ka horeysa kooxaha fanaaniinta iyo abwaanada abwaankii oo maalin walba hees cusub oo qiiro leh
oo taariikh ah oo dayaabta soo samaynaya oo laga yaabo in aan weegna seexan ama shan cisho ama 7 cisho ula rafto waxa ku xiga kii muusiga uu sameeyay ka tumaaya kuwa qaadaya intay soo dadaalayaan bal waqtiga iyo caafimaadka iyo waqtiga horreeyay qiyaas waxa intaa dheer magaalooyinka Soomaaliland oo dhan da'yarta joogta toddobaad ku dambeeyay ma seexan hawl dal ilayna ma qabsan waxay u soo jeedeen habeen iyo maalin oo inta warday oo laga yaabo qaar inay ku qada seegaan ay ku casho seegaan in ay muujiyaan dal jacaylkooda iyo siday ugu diyaar yihiin dalkooda daaficiisa marka intaas oo hawlooda isu galay waxay muujinaysaa dadka Soomaaliland dal jacaylkooda iyo halkay ka taagan tahay dadka waayeelka ah ee Soomaaliland aad iyo aad bay ugu mahadnaqayaan dhammaan inta ka soo qayb gashay ee dadaalka sameysay ee daafaha adduunka joogta ee gobolada jooga ee deegaamada jooga intaas waa qiimaha qarankeenu u muujiyay maalinta 18 May waxa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaan dhammaan intiina soo amriyeysay inta nooti waxaynu gudoonaa dardaarankii iyo waanadii uu soo jeediyay gudoomiyaha golaha wakiiladu hadal wanaagsan oo wayeeliba ah oo inoo gudoona aniguna intii la fareen oo qaatay anuu qarankan adeegaha koobaad oo ahay qaranku wixii ku wanaagsan oo inoo ma ka shaqeynaya albaabka iyo talada qofkii baahaba waa heeya xisbiyada qarankana waa ixtiraamayna horena waa u ixtiraamnay imikana haday walaalada carooday yihiin walaalayaal soo noqdo shaydaanka iska dhaaraan leenahay aynu wada hadal leh waan soo dhaweynaa wax kasta wax lagu wanaajinayo taana intaas aan ka yiri waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliland shacbigeedu meelay joogaan ma intii aan maanta yiri qaran jacayl shaqo horumar inuu kala ammaan helo oo isku duubnaana caalamkeenu wax la qabsano oo ab ka dhawey caalamku inuu kala dhow yahay kuwa jaarkeena ay cid weyn uga dhow yihiin aynu aad wax wada qabsano oo xuduuduhu ma aha diyaarad dadka u dhaxeeya iyadoo xuduud la kala yahay oo dawlad la kala yahay oo sharciyo la kala leeyahay haddana waan ku qasbanahay inaynu dhaqaale iyo nabad iyo dhaqan iyo bulsho iyo caafimaad intaba wadaagno oo inta waysan ka xiriireen waana nolosheedu halkay ka bilaabayso inay dalalka jaarka gacanta is qabsadaan oo ku xigaan gacanta is qabsadaan taas ma lagu horumari karaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ka soo qayb gashay iyo inta dhageysanaysa iyo inta dibadaha laga qayb gashay Soomaaliland ha noolaato ha jirto ha waarto sanadkaas inta ku gaadho wasalaamu calaykum wa rahmatullahi